نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين وعمر فؤادك بالتقى فالعمر محدود السنين. نور حياتك بالهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، سلامتك كذب أحبابي في الله. عندنا مشاكل كثيرة، مشاكل كثيرة جدا. يعني أحيانا حتى الشاب يريد أن يتزوج ولكن يقول لك أنا لا أستطيع أن أتزوج لأن الحياة صعبة. الحياة صعبة يا أخي. أصل الدنيا دار الشقاء ليس دار السعادة. يا أحبابي في الله، nolosha lagu jiro maanta nolol aad iyo aad u adag waaye. wax kastana asbaaba keento. aslan adduunyadan sidiisaba waa daar dhib iyo rafaad lagu marayo ilaa ilaahay aan la kulmeyno. yaa ayuha al-insaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaqih. ilaahay qur-aanku wuxuu noo sheegay in qofka bini'aadan inuu adduunkan dhibaato badan uu soo mari doono ilaa uu ilaahay la kulmo. intaad ka dhimanayso aad ilaahay la kulmayso dhib iyo rafaad adduunka ma ka dhamaanayso. marka axbaabi fillah, aadam calayhi salaam maada qaala allahu liaadam fi suurati taha. ilaah wuxuu ku dhahay aadam ina hada caduwun laka walizawjika falaa yukhrijannakuma min aljannati fatashqa. idan addunya asluhu daaru shaqaa laysa daaru saacada. marka adduunyadan sideeda waa rafaad badan tahay, laakiin su'aal aan isweydiino, rafaadka waa laba nooc, ibtilaada waa laba nooc. waxaa laga yaabaa qofkan uu ilaahay inuu ibtileeyo asigoo wanaagsan oo salaadihiisa dukanayo, adkaar akhrisanayo, waajibaadka ilaahay gudaayo, dadkaan dhibeenin, waalidkiisa baaru haddana saasoo ta waxaad arkaysaa inuu ibtilo ku jiro, nolol xooga cariiri inuu ilaahay geliyo, ilaahay inuu imtixaamo. marka axbaabi, ibtilada midaan oo kale waxaa waaye imtixaan jaceyl ilaah xaggiisa ka imaada waay. kan waa jaceyl ilaah xaggiisa ka imaada. ina allaha idaa axaba cabdan ibtilaahu nabiga sala allahu alay wasalam. ilaahay haddii addoonkiisa u jeclaado wuu imtixaamaa. su-aasha waxay tahay marka, qofka hadduu ku taagan yahay waddo cariiri oo aan laga baxaynin, rafaad, yani noloshii dhan waxaa waaye marmar waa ka hor imaaneen. maxaa keena marka asbaabta noocan oo kale? qofka inuu rafaad noocan oo ku jiraado, dhibaato aan dhammaanayn, welbahaar, qalbigiisa ma degno, sakiina ma lahan, tumaniina ma lahan. maxaa keena marka? qur-aanka dawlaaban suuratu taha ilaah wuxuuna leeyahay waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka. qofka ka jiisada dikrigayga. idan axbaabi, addikr mushtamilun bisalaa walqur'aan waltasbiix waltakbiir waltahliil. marka dikriga waxyaaba badan uu koobaa. salaadahan la dukanaa waa dikriga, qur'aan akhriska waa dikriga, tasbiixda la keenaayo waa dikri. marka camalka fiican ayay kusoo koobtaa dikriga. markuu ilaahay dhahay waman acrada, qofka ka jeesado can dikri intaasay koobtaa salaada. marka idan axbaabi fi lcaqiida, nolosha markaad oo rafaad saan oo kale aad kusii jirto, waxaa fiican inaad xisaabtanto, aad meel fadhiisato isweydiiso, xaggay ka imaadeen rafaadkan iyo dhibkan aniga aan ka baxeen, xaggay ka imaadeen? qofka muslimka uu isweydiiyaa, isxisaabi naftaada. xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasibuu wazinuu acmaalakum qabla an tuuzanuu. axbaabi fi lcaqiida, nolosha waa dhab, waa imtixaan, laakiin imtixaan joogto maahan. maanta qofaa waxaa arkay caafimaad uu qabaa, beri wuu xanuunsan yahay. maanta qofaa arkay nolol fiican uu ku nool yahay, beri cariiri uu ku jiraa. waxaa arkay maanta qof oo nolol cariiri ku jiro, beri nolol fiican uu ku jiraa. qof maanta xanuunsan, beri caafimaad uu leeyahay. adduunyada waa sidaas oo wareegto. laakiin qof markaa arkayso oo macnaha rafaadkiisa aan ka baxaynin, dhib iyo rafaad uu ku jiro, noloshii cariiri, marka waxaa keenaysa asbaabta koowaad oo qofka waxaa arkaysa inuusan salaad dukanaynin, dikriga inuusan bal imaanaynin,
ilaahay inuu santaday tasbiixdiisa uusan leemaneen marka waalidkiisu dhibaa xaaskiisu dhibaa u dulmiya salaad ma dukado quraan ma akhristo marka qofka noocan oo kale waxaan leeyahay aniga dib u laabo ilaahay u soo laabo tuubu ila allah jamiican ayuha almu'minuun la'allakum tuflihun wa tawbatu ya ibadallah rahmatun min allah وما أمرنا أن نتوب عليه إلا ليتوبنا وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر ذنوبنا وما أمرنا أن ندعوه إلا ليجيب دعاءنا أحبابي في العقيدة مركو حن الله هي إله لا تبكان حدارة النولل في عن نكون ولاته عن عرير الله النولل في عن قلبي جاود دجن وحلقة وأنا أسوي ديسو ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إن أسوي ديسو قف حاجة إلى هاي oo ilaahay maal siiyay lacag kulon yaani lacag uu leeyahay hanti uu leeyahay nolol raaxo ku jira maxaa salaadna mudukado sidee ku dhacday laga yaabo qalbiga inuu soo galo dhigeyso qofka bin aadan qofkaas oo kale hadaad aragtidna qalbigiisa ma degno waxa laga yaabaa adiga inaad aragto qofkan inuu macnaha lacag fiican uu leeyahay hanti leeyahay oo gaar uu ku socdo nooc kasta guri weyn uu leeyahay laakiin qalbigiisa ma degno xasilooni ma lahan sakiina ma jirto tumaaniina ma jirto marka ahbaabi fil aqeeda ilaaha u soo laabano asbaabta koowaad waa ilaahay aan u soo laabano waayo dambiyada markaas ay badato oo markaas nolosha cariir ay noqoto idan ahbaabi fil aqeeda ina ku sii dheeraado marabi waxaan idin ku codsanayaa clipkan hadaad aragtaan inaad asxaabtiina la wadaagtaan marka mid labaad ay idin sheega waxay tahay sideen ugu bax karnaa aayadan dhigeyso ilaahu wuxuu leeyahay man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah qof kasto mu'mine amal saalix la imaado wiil iyo gabarba oo amal saalix la imaado ilaahay wuxuu leeyahay waxaanu nooleynsiin doonaa adduunyada nolol aad iyo aad u wanaagsan aakhirana amalkay sameeyeen mid ka wanaagsan alo awal marna mid ka badan oo ka sii wanaagsan ay awal marna ay heli doonaan marka idan noloshu waxa laga bixi karaa cariirka oo amal saalixna la imaado بالتقى فالعمر محدود السنين